بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة alqiram ama Crimea waxay dhacdaa waqooyiga badda madow ee Black Sea dhanka bari waxa uga beegan badda Azaq masaaxada ay ku fadhida jasiirad wakaan istiraatiijiga ah ayaa lagu qiyaasaa 26 kiiloomitir oo square ah dadka ku dhaqan jasiiradan muslimiintu ay leeyihiin ayaa gaaraya 2 milyan oo qof sida lagu sheegay tirakoob la sameeyay sanadii 2001 balse waxaa rumaysan yahay in tirada dadka ku dhaqan jasiiradan ay intaas ka badan yihiin marka loo eego taranka dadka iyo dalxiisayaashii halkaasi ku qulqulayay magaalada caasimada u ah jasiirada alqiram ama Crimea waxaa lagu magacaabaa Siframbal xilligii dawladii Cuthmaaniyiinta waxaa magaaladan lagu magacaabi jiray Aaq Masjid oo macnaheedu yahay masjidka cad waana luqadda ay ku hadlaan dadka Tataarka muslimiinta oo ah kuwa laga boobay dhulkan qarnigii 19aad ayay ciidamada dawladda Ruushka qabsadeen jasiirada alqiram halkaas oo ay ka asaaseen saldhig military oo aad u weyn jasiirada alqiram ayaa leh magaalooyin waaweyn iyo kuwo yaryar waxaana ugu caansan magaalada caasimada ah ee Siframbal bilowgii 40meeyadii markii uu soo gabagaboobay waxa loogu yeero dagaalkii labaad ee adduunka ayay alqiram noqotay mustacmarad Ruushku gumaysto waxaana jasiiradan ay martigelisay loolana u dhaxeeyay gaaladii galbeedka iyo bariga ee ku loolamayay awoodda caalamka islaamka ayaa gaaray jasiirada alqiram isla markaasna maamulayay muddo qarniyo ah qabiilka Tataarka ayaa diinta islaamka gaarsiiyay jasiiradan kolkaas oo ay soo jiiteen dadkii gaalada ahaa ee deganaa kuwaas oo badankood ka soo jeeday wadamada Talyaaniga iyo Greega ducaadii muslimiinta ee xilligaas ayaa diinta islaamka u sharaxay ganacsatadii iyo kuwii tamashada u tagi jiray taas oo ugu dambeyntii keentay in islaamku uu qaalib ka noqdo diimihii kale ay haysteen dadkii deganaa jasiirad wakahan qarnigii 8aad ee hijriga ayay dawladii islaamiga ahayd ee ka jirtay jasiirada alqiram ay aad u xoogeysatay sanadii 831 hijriga kuna beegneed 1427 miilaadiga ayay dawladii alqiram ee muslimiintu ay lahaayeen isku fidisay dhulka dariska la ah jasiirada wakahan waxayna kulaashay imaaradii gaalada ee ka jirtay magaalada Moscow ee dalka Ruushka taariikhda waxaa ku cad in dawladii islaamiga ahayd ee alqiram ay nidaamka jizyada ku soo rogtay imaaradii gaalada Ruushka xilligaas waxaa amiir ka ahaa alqiram Sultan Maxamed Kiray bilowgii hore ee qarnigii 7aad ee hijriga balse sanadii 979 hijriga ayay dawladii Ruushka ee muslimiintu ay jizyada ka qaadi jireen ay xoogeysatay ayna dib u qabsatay dhulka maanta loo yaqaano jasiirada wakaha alqiram isriixriixa u dhaxeeyay gaalada iyo muslimiinta ayaa ku sii xoogeysay jasiiradan sanadku markuu ahaa 1991 hijriga ay dawladii Cuthmaaniyiinta waxay gurmad xoogan u dirtay walaalahooda la qabsaday ee Tataarka alqiram waxayna Cuthmaaniyiinta iyo Tataarkii muslimiinta ah oo iskaashanaya ay ku guuleysteen inay dib u furtaan jasiirada alqiram ayna ka xureeyaan imbiradoriyadii Ruushka wixii xilligaas ka dambeeyay ayuu istiqraar taam ah ka jiray jasiirada wakaha alqiram ilaa muddo qarni kaamil ah ayuu islaamku jasiiradan maamulayay isla markaasna duulaana ku qaadayay gaaladii Ruushka ee dariska la ahayd waxaa la sheegaa in alqiram ay soo maamulayeen ilaa 47 saldanadood oo islaami ah dawladii Cuthmaaniyiinta ayaa awood badan geysay jasiiradan sabab la xiriira muhiimadda ay leedahay iyo iyadoo kaabiga ku haysa cadawga islaamka ee xilligaas waxaana la sheegaa in jasiirada mar uu waali ka noqday Sulaym al-Awwal ama Sulaymaan al-Qanuuni oo kamid ah hogaamiyaashii khilaafada islaamka Cuthmaaniyiinta xilligaas waxaa caasimad u ahayd alqiram magaalada lagu magacaabo Khanat muslimiinta alqiram ayaa dagaal geesinimo xambaarsan la galay gaaladii Ruushka waxayna muujiyeen in marnaba aysan isdhiibi doonin ilaa markii dambe dawladii Moscow ka jirtay ay geysatay gumaad wuxuushnimo ah sanadii 1917 dawladda gaalada Ruushka ayaa hareereyn dhan walba ah ku soo rogtay jasiirada alqiram waxaana ka dhashay majaaco sababtay inay geeriyoodaan kumanaan kun oo qof hareereynta oo socotay muddo 5 sanadood ah waxay sababtay in gaajo ay u dhintaan dad ka badan 60 kun oo qof muslimiin ah sida ay xaqiijisay dawladda Ruushka qudheeda ee faldambiyeedkaas mas'uulka ka ahayd sanadii 1945 ayaa kumanaan kun oo qof muslimiin ah oo jasiiradan ku dhaqan si qasab ah looga barakiciyay guryahooda waxaana loo raray dhanka wadamada dhaca bartamaha qaaradda Aasiya Samadin Filashnivis wuxuu kamid ahaa muslimiintii u soo joogay gaboodfaladii dhacay isagoo 5 sano jir ah ayaa loo barakiciyay dhanka qaaradda Aasiya wuxuuna ka sheekeeyay wixii xilligaas dhacay muslimiinta alqiram ayaa wadooyinka ku geeriyoonayay caruurta iyo haweenka ayaa nafaqa darro u dhimanayay waxaas oo gaboodfala ah waxay dhaceen xilligii madaxda ka ahaa midowga Sovieti hogaamiyihii shuuciga ah ee lagu magacaabi jiray Stalini Они пришли, это в то время, когда уже все спят, все уже дома собрались,
جاءوا في الظلام عندما كنا نائمين في المنزل. دق 3 جنود روس باب بيتنا، كانوا مدججين بالأسلحة وقالوا لنا خرجوا الآن من منازلكم. xilli habeen ah ayay noo yimaadeen inagoo guryaheena jiifna 3 askari oo ruush ah ayaa albaabka noo soo garaacay. aad ayay u hubaysnaayeen, waxayna nagu amreen inaan banaanka u soo baxno si naloo musaafuriyo. aniga iyo walaalahii waxaan bilownay qaylo iyo oohin. annaga iyo hooyadeen oo keliya ayaa goobtaas ku sugnaa. habeenkaas 2 ka mid ah walaalahii waxaan u geynay deriska, inteeni kale xoog ayaana lagu musaafuriyey. waxaan xasuustaa oohinta caruur yaryar oo naas nuugiyaal ah iyo sidii ay muddo yar kadib oohintoodii u aamustay kadib markii ay naftii ka wada baxday. kadibna waxaa iyaguna dhintay ilmihii iyaga ka yara weynaa. kadibna dadkii waaweynaa ayaa markooda dhimasho bilaabay. أذكر جيدا بكاء الأطفال الرضع وكيف اختفى بكاؤهم بعد فترة بسبب موتهم، وبعدها ماتوا الأطفال الأكبر سنا، وبعدها بدأ المسنون يموتون. اليوم جميع عائلات تتار القرم تعيش في رعب، لا نشعر بالأمان في بلدنا. هناك عمليات خطف وقتل بأبشع الطرق والوسائل. maanta dhammaan qoysaskayga tataarka alqinam waxay la nool yihiin cabsi daran. wax amni ah kuma dareemayno waddankeena oo waxaa halkan ka jira howlo afduub ah oo loo adeegsanayo qaababka ugu xun. هناك عمليات خطف وقتل بأبشع الطرق. meelaha dadka loo barakiciyay waxaa ka mid ahaa Turkiga, Uzbekistan, Romania iyo Bulgaria, balse intii dadkaas muslimiinta ahaa ay jidka ku sii jireen ayay gumaad kala kulmeen gaaladii Romania iyo Bulgaria oo cadaawad soo jireen u haya islaamka iyo ehelkiisa. qaraar ka soo baxay midowgii Sovieti sanadii 1387 hijriga oo ku beegneed 1976 miilaadiga ayaa lagu burburiyay 1500 oo masaajid iyo macaahid muslimiintu ay ku lahaayeen jasiiradda Al-Qiram. sanadii 2014 kooxaha mucaaradka wadanka Ukraine ayaa riday madaxweynihii Ruushka taabacsanaa ee Viktor Yanukovych. kadibna Ruushka ayaa qaaday duulaan isagoo qabsaday Al-Qiram isla markaasna ilaamiyay in dalkiisa uu ku darsaday. xilligaas ayay jasiiradda qarka u fuushay inay martigeliso loolana caalami ah. الفترة التي يمر فيها عالمنا الحالي من مرحلة الثنائية القطبية إلى أحادية القطبية والآن marxaladda uu caalamku marayo ee kala ah xilli ay 2 awoodood ka jirtay iyo xilli ay 1 awood oo kaliya ka jirta ilaa maanta oo ay awoodo kala duwan ka jiraan. waxaa halkaasi ka arkaynaa muhiimadda ay Al-Qiram iyo magaaladeeda ugu weyn ee Sevastopol leedahay inay dib caalamka ugu soo laabanayso. waxaan arkaynaa inay noqotay kaar siyaasadeed iyo mid juqraafi siyaasadeed intaba. ونراها اليوم يعني كورقة وكأداة سياسية وجيوسياسية. ciidamadii Ruushka ee qabsaday jasiiradda ayaa sidii caadada u ahayd waxay bilaabeen inay qamciyaan muslimiinta oo ay gumaaraan shacabka iyagoo marmarsiyo uga dhiganayo inay la safan yihiin dowladda Ukraine oo taageero ka helaysay Mareykanka iyo reer galbeedka intiisa kale. kooxaha fallaagada ah ee mucaaradka Ukraine ee Ruushka watay ayaa gubay masaajida iyo macaahidda muslimiintu ay leeyihiin, halka ciidamada booliska Ruushka ay xoog ku galayeen warbaahinta muslimiintu ay leeyihiin iyagoo bilaabay abuurin dhan walba ah. sida ay sheegayso Leyla Badjoraf oo maamul ku xigeen ka ahayd telefishin maxalli ah, iyadoona hogaamiyaasha muslimiinta Al-Qiram ay ka sheeganayaan gabood fallo iyo cabsi gelin joogto ah. يمنع القول أن القرم محتل. lama ogola in la yiraahdo Al-Qiram waa goob gumaysi ku jirta. sidoo kale lama ogola in waraysi la yeelano ama sii deyno codadka dadka ku baaqaya mudaharaadyo aanan ogolaansho looga haysanin maamulka meesha ka jira. waxa kale oo aan la ogolayn in mudaharaadyadaas aan telefishinka ka sii deyno. ويمنع كذلك تمرير مثل هذه المظاهرات على الشاشة. wixii ka dambeeyay sanadii 2014 markii Ruushku ay dib u qabsadeen Al-Qiram oo gumaystuhu hore u raacsiiyay Ukraine ayuu dib u hirgeliyay saldhigiisa military oo aadka u weynaa. waxaana qabsashada jasiiraddan ay qayb weyn ka tahay loolanka caalamiga ah ee dunida ka jira kaas oo u dhaxeeya dawladaha ku hubeysan hubka waxbaabiya ee nuclearka. هذا الأسطول تاريخيا كان يربط مركز الأراضي الروسية عبر نهر الدون بالبحرين الأسود وأزوف. ciidamada badda waxay taariikh ahaan isku xiri jireen bartamaha dhulka Ruushka iyagoo adeegsanaya webiga Don ee dhaca badda madow iyo Azov. xilliga hadda la joogo waxay dhowr maalmood ku gaari karaan badda dhexe si ay howlgallo ciidan u soo fuliyaan iyagoo maraya marin biyoodka Bosfor.
kaalintaas waa mid ay horey u gabeen kadib markii uu midowgii sofiyeeti burburay. هذا الدور كان قد اختفى مع انهيار الاتحاد السوفيتي. warbixinadii ugu dambeeyay ee laga soo aruuriyay jasiirad wakaha al-qiram waxay sheegayaan in muslimiintu ay u sii firxanayaan dhanka dowladda Ukraine kadib markii ay bateen cadaadisyada uga imaanaya dowladda Ruushka. hogaamiyaasha muslimiinta jasiiradda al-qiram waxay rajeynayaan inay mar kale iska xureyn doonaan ayna sharafkooda dib u soo ceshan doonaan insha Allah.